gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso ayaa daafuray mashruuc lagu dhisayo wada xaafadeed dhaxmarta saddex wax oo kamid ah degmada Waabari kuwaas oo kala ah hanti wadaag horseed iyo maajo waxaana furitaanka mashruucan goobjoog ka ahaa maamulka degmada mas'uuliyiin kala duwan iyo qeybaha bulshada gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi Cali ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyay mashruucani ku xarag jarnay inaan furno wadooyinka aan furno aan tijaabo noo ahayd wadadii aan furnaa maanta dhismaheedu diyaar yahay muhiimadda laga lahaa waxay ahayd in isku socodka bulshada adeegyada iyo amnigaba ay ka qayb qaadato iyo bilic soo celinta caasimadda gaar ahaan degmada Waabari maanta dhismaheedii oo ah tijaabo kale oo ah in wadooyinka in la furo haddana la dhiso ee wadooyin muuqaal qurxoon leh la mari karo bulshadii ay ka faa'iideysan karto adeegyadii isu socon karaan inay noqoto inaan tijaabo kale u galno waa ilaahay mahadis maanta diyaara loo yahay in la dhiso oo laga dhigo wada jay adag ah oo sii jiri karta ayadoo wadata adeegyadii loogu talagalay duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso waxa uu tilmaamay in la sii xoojin doono mashaariicda lagu horumarinayo caasimadda si loo soo celiyo bilicdeeda waxaan kaloo rabnaa bulshadana u sheegno in arrimaha danta guud wadooyin ka mid yihiin iyo goobihii lagu adeegayo bulshadaba inay muhiim tahay annagana u soo jeesanay dibadhiskooda iyo horumarkooda tan oo qayb ka ah caasimaddan si ay ula tartanta caasimadaha adduunka waa in la helo caasimad la jaan qaadi karta caasimadaha adduunka arrintan waxay ku timid dadaal degmada Waabari iyo shacabkeeda runtii ay u garteen ahmiyadna siiyeen markii lala tashtay wadadan inay ahmiyad gaara u leedahay una baahan yihiin wadooyinkana in loo furfuro waxaan kaloo codsanaynaa dadka wadooyinka dhistay ayagana inaan digniin adag u dirno tii u dambeysay oo ah cid wado soo geli karta male gurigaaga hadduu dabaq yahay 1 mitir haddaad soo gasho waxa waa wixii ka yimaada adaa mas-uulka marka hore goob wada ah oo dan guuda ha haweysanin ha dhisanin hana maaragtay muxuu ka qayb qaadanin in muxuu falalka noocaas oo kala marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha iyo maamulka degmada Waabari iyo shacabkaba oo maantana sida aragteen noo soo dhaweeyay sidii ugu faraxsan yihiin aad u jeedaan marka waxaan rajaynaynaa wadadan oo hagaagsan baabuurta mareysana inaan markale isugu soo noqon doono aad iyo aad u mahadsantihiin Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambalaalka digniintaasi markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada